بسم الله الرحمن الرحيم أشكال ما طحن وادر دونا وادرنتيس وحوينك waxaan ka hadli doonaa special English xaglaha qaaska magaarka ee la special English ka waayay arday waxaan rabaa inaan ogaatiin horta marka kuwaad special English ku wax yar oo relationship ama xiriirada ayaa ka dhaxeeya waxaan rabaa inaan idin sheego horta marka special English ku waa xaglaha standard position ka dhaco waayo special English ku waxa waaye xaglaha sida position ka dhaco waaye ama xaglaha gaarka waaye xaglahaas oo waliba qiimaha trigonometry functionska sin iyo cos iyo tan iyo wixii la halmaano ama saddexda kaleento ay ku aragto broker ku aba ay ku leeyihiin value ama qiimo ku leeyihiin okay waayay hadda marka waxaan rabaa special English ka xaglaha gaarka ogaada arday waxa loo qeybiyaa laba qaybood qayb waxa la yiraahdaa waxa loo yaqaanaa quadrantis lahaa qayb waxa la yiraahdaa quadrantis waxa ay kala qaybiyaan okay kuwaas quadrantis ka waxa kala qaybiyaa kamid ah 0 degree radian ahaan waa 0 leewayaan ayadu waxaan dhahayna waa special English ka 0 kamid tahay waliba waa quadrant waaye ayadu wax ma dhacdo wax ay kala qaybisaa 90 degree ayaa special English ka kamid ah 90 degree asaguna waa quadrant waa asagana wax ay kala qaybiyaa sidoo kale waxa kamid ah 180 degree oo radian ahaan u dhigmata bay ayaduna quadrantis waaye wax ay kala qaybisaa 230 degree ayaa kamid ah ayaduna quadrant ayaduna wax ay kala qaybisaa wax ma dhacaan special English ka kuwaas kamid qayb kamid oo kuwaas qaybaha kale waxa la yiraahdaa waa non quadrantis waa kuwa wax dhaco non quadrantis waa kuwa oo wax dhaco okay kuwa wax dhaco marka dabcan waxa kamid ah ayagana 30 degree waxa kamid ah 30 degree oo iyadana u dhigmata radiana ay markii raad ahaan loo sheego by over c u dhigmata waxa kale oo kamid ah 45 degree oo marka radian ahaan loo sheego noqonaysa iyadana by over 4 waxa kale oo kamid ah ayadana 60 degree oo marka radian ahaan loo sheego noqonaysa by over 3 noqonaysa marka dhammaan angaladan hadaan sheegay 60 degree 45 degree 30 degree oo radian koodana meeshaan ku qoray ayagana waxa la yiraahdaa waa special English waa laakiin waxay kaga duwan yihiin every 90 iyo 180 waxay kaga duwan yihiin 360 ayagu waa non quadrant waa wax ma kala qaybiyaan sida la jid waaxid aan had sida muuqato 60 iyo 45 iyo 30 waxay u dhaxayaan 0 ilaa 90 soo daad marka waxay dhacaan waaxda koowaad waxaa jira marka angalka 60 iyo angalka 45 iyo angalka 30 waxaa jira angalo u dhigmo oo special angle ayagana kuwaas oo dhaco waaxda labaad waaxda saddexaad iyo waaxda afraad dhaco marka wareegga koowaad waxaan ka qaadanaynaa special English kuwa waaxda koowaad dhaco waa 60 45 30 kuwa waaxda dhaco kuwa u dhigmo waxaa jira iyagana waaxda labaad dhaco iyo saddexaad iyo afraad marka special English ku waa kuwa intooda ugu caansan qaar kamid ah kuwana okay hadaba marka waxaan rabaa maanta inaan qodobka aan diirad ku saaray maanta waxa waaye waaxa qodobkii maanta waxaan diirad ku saari doonaa waaxa ayaa diirad ku saari doonaa dabcan waxaan dhahnay ilaa 4 waaxood ayuu qaybsan yahay wareegga dhameystiran halkii wareeg oo dhameystiran laga soo bilaabo 0 ilaa 360 ibn booskeed ku soo laabo waxay ka kooban tahay ilaa iyo 4 waaxood ay ka kooban tahay واحد كواد واكنا وكوادراتيك 1 واحد كواد maxaa waaye quadratic 1 waaye waxay ka bilaabanay 0 degree ilaa 90 degree raad ahaan waa 0 ilaa by of 2 okay waaxda labaad ayadana waa tan ayadana waxay ka bilaabanaysaa 90 degree waxay ku egtahay 180 degree ku egtahay ayadana raadiyan ahaan marka loo sheegana waxay ka bilaabanay by of 2 ilaa waxay ku egtahay by ay ku egtahay okay waaxda saddexaad ayadana waxay ka bilaabanaysaa 180 ilaa waxay ku egtahay 270 waaxda saddexaad weeyaan okay waaxda afraad ayadana 270 ay ka bilaabanaysaa ilaa waxay ku egtahay 360 radian marka loo sheegana waa 3 by 2 ay ka bilaabanaysaa ilaa 2 by okay soo marka waaxda afraad halkaan ay iyadana noo noqon doontaa okay hadda waxaan isweydiinaynaa marka waaxahan waa maxay saameynta ay ku leeyihiin trigonometric functionska ama trigonometric ratio saameynta ay ku leeyihiin maxaa waaye dabcan waaxahan saameyn ay leeyihiin waxaa la yiraahdaa tusaale waaxda koowaad oo kale markaan soo qaadano waaxda koowaad waxaa la yiraahdaa dhammaan all trigonometric ratios sida sin cos tan iyo wixii sabro kale iyagu waa saddexdaasba waxaa la yiraahdaa waa positive qiimahooda waa positive sin 30 sin 60 sin 45 dhammaan taas oo dhan waxda koowaad ee dhacaso qiimaha sin wuxuu noqonayaa positive cosna waa la mid ayadana positive ayay noqonaysaa tan waa la mid ayadana positive ayay noqonaysaa ama qiimo togan ayay yeelanaysaa sida la jeedo marka waxaa la yiraahdaa waaxda koowaad ama quadratic 1 waxaa la yiraahdaa all waa positive okay trigonometric ratio dhan maxaa waaye waa wada positive all waxaa dhahaynaa are positive okay dhammaan trigonometric ratio dhan waxaa dhahaynaa waaxdan koowaad marka la joogo waa positive
daad aragtid qiimaha sin iyo cos iyo tan inuu positive ama plus yahay waa inaa ogsoonataa ama xasuusnaataa inuu waaxda la joogay tahay waaxda koowaad. Okay, waaxda labaad haddii la tago maxaa dhacaya iyadana? waaxda labaad waxaa positive noqonaya oo keliya sin theta ayaa waxay noqonaysaa markaan positive. Okay, sin theta ayaa positive noqonaysa iyo reciprocalkeeda oo ah cosec theta. labadan oo keliya ayaa positive noqonaya. That means afarta kale soo hartay cos, sec, tan iyo cot waxay noqonayaan negative noqonayaan waaxda labaad marka la joogo. marka waaxda labaad marka la joogo waxaan dhahaynaa sin iyo cosec ayaa keliya ayaa positive noqonaya inta kale waxay noqonayaan negative. Okay, waaxda saddexaad marka la imaado ayadana waxaa positive noqonaya oo keliya tan theta ayaa waxay noqonaysaa positive iyo tan theta reciprocalkeeda oo iyadana ah cot theta ayadana waxay noqonaysaa positive. dabcan wixii ka soo hara ayaga waxay noqonayaan negative sida sin, cosec, cos iyo sec waxay noqonayaan waaxda saddex marka la joogo negative ay qiimahooda ama value-gooda noqonaya. waaxda afraad marka imaado waaxdan cos ayaa iskale waxaa positive noqonaysa oo keliya cos theta. Okay, waaxda marka la imaado waxaa positive noqonaya cos, waxaa kaloo positive noqonaya cos reciprocalkeeda oo iyadana ah sec theta ayaa iyadana positive noqonaysa. dabcan marka meesha waxaan ka ogaanay waaxaha marka la joogo inay yihiin ilaa afar waaxood. waaxda koowaad waxay ka bilaabataa 0 degree ilaa iyo 90 degree. waaxda labaad waxay ka bilaabataa 90 ayay ka bilaabataa ilaa 180 ku xigta. waaxda saddexaad 180 degree ayay ka bilaabanaysaa ilaa 230 degree. waaxda afraad 230 degree ayay ka bilaabanaysaa ilaa 360 degree. radian ahaantoodana meesha ayagana ku qoran yihiin meesha ay ka bilaabato meesha ku dhamaato. dabcan waxaa kaloo lagu ogaa karaa waaxaa trigonometric function ratio-ga. tusaale haddii trigonometric function qiimihiisa loo siiyo dabcan waxaa ogaa karaysaa waaxda aad joogtid waa ka dhaca. marka waaxaa laba sib baa lagu ogaadaa. waxaa lagu ogaadaa haddii angle la yaqaano qiimihiisa loo siiyo waa ogaa kartaa angalkaasi waaxda oo dhaco. tusaale hadda waxaan ku siiyo kale 150 dabcan waxay u dhexaysaa 180 iyo 90 waaxda labaad ay dhacdaa already waa horaa go'aaminaysaa. sidoo kale waxaan ku siiyo 240 waaxda saddexaad ay dhacdaa iyadana ilaa 180 iyo waxay u dhexaysaa 270. haddii loo siiyo 300 degree waxaa ogsoonaanaysaa inay waaxda afraad tahay. dabcan haddii angalka qiimihiisa lagu sheego waa ogaa kartaa waaxda uu dhaco. sidaa kale waxaa la yidhahdaa waaxda uu angalka dhaco asagoo aan cabirkiisa la aqoonin ayaa la ogaa karaa. sidee lagu ogaanayaa? waxaa lagu ogaanayaa trigonometric functionka value-ga ama qiimaha oo siinayo ma positive ama negative halkaas ayaa lagu ogaanaya. waayahay arday hadda meeshaan fiiri tusaale ayaana la siiyey ama example nagula weydiinayo ama lagu ogaanayo inaa waaxaha wax ka fahnan yihiin kale. dabcan meesha waxaa taalo angle aan qiimihiisa la garanaynin. angleka qiimihiisa la garanayo automatic waa sheegi karnaa waaxda uu dhaco sooma ilaa waxaan naqaanaa waax walba ay meesha ka bilaabatay halkay ku dhamaato marka wixii ku dhex jiro waa dareemi karnaa. hadda fiiri meesha waxaana lahay haddii if sin theta is equal 4/5 and cos theta is equal -3/5 which quadrant the theta ka oo macnaheedu tahay haddii sin angalkeedu yahay theta haddii la egta 4 loos dhiga 5 cos angalkeedu yahay theta ay la egtahay -3/5 haddaba waaxdii ayay dhacdaa xagasha theta waaxdii ay dhacdo waa waaxdii. fiiri anaga theta cabirkeeda ma naqaano marka ma sheegi karno waaxdii ay dhacdo si toos ah. laakiin hadda waxaan ka faa'iideysanaynaa laba trigonometric function oo kala duwan oo aan reciprocal isku ahayn ayaana la siiyey. sida la ajid waa sheegi karnaa marka theta waaxda ay dhacdo. Okay, waayahay waxaan dhahaynaa we know waxaan ognahay oo nala siiyey tan theta waxaan ognahay in la siiyey qiimo ah 4 la hoos dhigay 5 oo laakiin ah positive. tan theta waxaan la siiyey 4 la hoos dhigay 5 laakiin qiimahaas waa qiimo oo dabcan oo positive ah weeyaan. Okay, waayahay sidoo kale iyadana waxaa ogsoonahay in cos theta iyadana waxna la siiyey. Okay, waxaana la siiyey cos theta iyadana qiimo negative ah oo ah -3/5. su-aal is weydiinayna marka waxaan isweydiinaynaa functionka sin imise waaxood ayuu positive ku yahay horta marka koowaad. functionka sin imise waaxood ayuu positive ku yahay? sin dabcan wuxuu positive ku yahay laba waaxood waaxda koowaad iyo waaxda labaad. that means marka waaxda saddexaad iyo waaxda afraad wuxuu ku yahay minus. marka sin theta maadaama ay qiimaheeda positive yahay angalkan theta la yiraahdo ama wuxuu dhacaa waaxda koowaad ama wuxuu dhacaa waaxda labaad. intaa theta ayaan ka ogaada sin ayaan ka ogaada intaas. cosa marka waxay noo go'aaminaysaa inay thetadu tahay koowaad ama labaad ayadaa go'aaminayso. ilaa hadda sin waxaan ka ogaanay inay positive tahay sin loo meelay positive ku tahay waaxda koowaad iyo waaxda afraad. cosa imaanayna marka cos ayadu waa negative dabcan. cos maxaa waaye waa negative. waxaan isweydiinaynaa cos imise waaxood ayay negative ku tahay.
cos waxay negative ku tahay ayadana laba waaxood labadaas waaxood oo ah waaxda lamaad iyo waaxda saddexaad cos waxay negative ku tahay waaxda lamaad iyo waaxda saddexaad hadda waxaan ogaanay marka theta waaxda ay dhacdo waan ogaanay haddii waxaan markaan saan joognay ama waxaan dhihin ama waa 1 ama waa 2 hayse qodobba cos 1 iyo 2 ay minus ku tahay cos 1 waxay ku tahay positive 2 minus ku tahay sida la ajig theta waxaan dhihinaa waxay dhacdaa waaxda labaad ay dhacdaa okay waxaan dhihinaa marka angle-ka theta okay angle-ka theta la yiraahdo angle-ka la yiraahdo theta is in wuxuu dhacaa quadratic 2 ama waaxda labaad ayuu dhacaa ayaan oranayna waxaan ku ogaanay qiimaha functionskiisa dabcan mas'alo kale ama su'aal labaad ayaan weydiiyay arday su'aashaas oo dhan dhahaysa ayadana given waxaa haysatiin ama waxaa la idin siiyey maxaana la siiyey cos theta waxaana la siiyey plus radical 3 of 2 tan theta waxaana la siiyey minus radical 3 over 2 over minus radical 3 over 3 ayaana la siiyey maxaana la rabaa marka which quadrant waxaa la idinka rabaa waaxdee ayay daa theta akar waxaa la rabaa inaad sheegtiin waaxda ee theta ama angle-ka la yiraahdo theta waaxda oo dhaco sheega dabcan ayaguna markaan ka shaqeynayno waa sahlanta ayaan oranaynaa oo waxaan ka tusaale qaadanaynaa labada trigonometric ratio ama function in la siiyo okay waayahay solution-ka maxalka muxuu noqonayaa okay you know waxaa ogsoon tahay ama waxaa lagu sheegay cos theta inay positive tahay okay cos theta qiimaheeda waxaan ognahay inuu yahay positive inuu yahay ogsoon nacmo waa positive radical 3 over 2 okay sidoo kale waxaan ognahay ayadana tan theta ayadana inay tahay negative oo ah minus radical 3 over 3 horta marka su'aashaas weydiinayna waxaa waaye cos theta waa positive mise waaxood ay cos ay positive ku tahay laba waaxood ay cos positive ku tahay waa waaxda koowaad iyo waaxda afraad waaye cos waxay positive ku tahay ama plus ku tahay waaxda koowaad iyo waaxda afraad okay ama labadaas midkood oo noqonaa marka theta kana noo go'aaminaya marka taana noo go'aaminayso tan ayadana labadaas waaxood hadda aan soo sheegay waaxda koowaad iyo waaxda afraad midee ayay minus ku tahay ilaa inta qiimaheedii waa minus ama labadaas waaxood ee aan haysta hadda ee koowaad iyo afraad tan midee ayay minus ku tahay dabcan waxaan ognahay waaxda koowaad kulli wada positive lagu yahay tan xitaa positive ku tahay sooma waaxda afraad marka tan waxay ku noqonaysaa negative sida la ajigay go'aanka aan gaarin wuxuu noqonayaa theta angle-ka la yiraahdo theta is in quadratic 4 marka theta waxay dhacdaa adheena waaxda afraad ayay noo dhacdaa ayaan leenahay theta okay waayahay marka arday waxaan ka doodaynaa tusaalaha saddexaad isagana tusaalaha saddexaad ayaa isagana ka doodaynaa tusaalaha saddexaad maxaan allah marka if sin theta haddii sin theta ay la eg tahay negative 5 divided by 13 cos theta ay la eg tahay negative 12 divided by 13 which quadrant that is theta aka angle-ka la yiraahdo theta waaxda oo dhaco ayaa laga rabaa adoo og sin theta inay kula eg tahay minus 5 divided by 13 cos theta ay kula eg tahay minus 12 divided by 13 dabcan qiimaha ama value-ga meel dhig anigu markasta waxaan fiirsanayaa qiimaha function-ka uu leeyahay calaamadiisaan fiirsanayaa ma positive ama waa negative okay way arday waxaa ogsoontihiin ama la siiyey sin theta waxaa ogsoontihiin arday in la siiyey qiimaheeda inuu yahay negative minus 5 divided by 13 in la siiyey ayaa ogsoontihiin waxaa kaloo arday ogtihiin in la siiyey ayadana cos theta qiimo negative asagana ah oo ah minus 12 divided by 13 dabcan waxaa isweydiinaa markaa sin mise waaxood ayay negative ku tahay sin waxay negative ku tahay waaxidii aysan positive ku ahayn tusaalaad waxaa daa noola sheego sin inay positive ku noqonayso waaxda koowaad iyo waaxda labaad saddexaad iyo afraad marka maxay ku noqonaysaa negative ay ku noqonaysaa dabcan minus ay ku noqonaysaa qiimaha sin marka wuxuu minus noqonayaa waaxda saddexaad iyo waaxda afraad marka theta waxay dhacdaa ama saddexaad ama afraad ay dhacdaa cosaa go'aaminaysa marka hadda waxaa isweydiinaya cos waaxda saddexaad iyo afraad midee ayay minus ku tahay cos afraad minus kuma ahan balaas ay ku tahay saddexaadii marka cos minus ku tahay soo marka waxaa la dooranayaa theta ama waxaan oranaynaa theta is in quadranti 3 theta waxay dhacdaa ayaan oranaynaa waaxda saddexaad ay dhacdaa